cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waa in uu soo dhiso golo wasiiro oo khibrad leh kana turjuma bulshada oo dhan. 2 xoojinta sharciga iyo hufnaanta maamulka waa in uu madaxweynahan hadda la soo doortay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro uu sameeyo isbedello sharci oo lagu xoojinayo daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka bulshada dhexdeeda. 3 waxaan yiraahdo heshiisyo dhaqaale oo xooggan oo ay kow ka tahay heshiiskii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu sanadkan bishii 1 2024 uu la galay dowladda Itoobiya. 4 dhiirigelinta wadahadallada iyo iskaashiga bulshada dhexdeeda waa in uu xoojiyo in uu bulshada sidoo kale aan yiraahdo uu ku hogaamiyo wadatashi iyo iskaashi si gaar ah loogu eegayo horumar loo dhan yahay. 5